qaar ka tirsan qurbo-joogta ka soo jeeda deegaanada waqooyi gobolka Galgaduud oo dhawaan soo gaaray magaalada Caabudwaaq ayaa waxa ay maanta booqasho ku tageen garoonka diyaaradaha ee magaalada Caabudwaaq. Qurbo-joogtan ayaa waxa ay ugu horeyntii soo indho-indheeyeen garoonka iyo sida shaqadu ay u socoto. Waxa ay gudaha garoonka kula kulmeen guddiga garoonka oo ay ka wada hadleen meesha uu marayo garoonka iyo sida ay hawshu u socoto. Sidoo kalena Xasan Faray oo ka mid ah guddiga dhaqaalaha airportka ayaa waxa uu intii lagu guda jiray kulankaasi soo gudbiyay guud ahaan dhaqaalihii qasnada soo galay iyo meelaha dhaqaaluhu uu ka soo galay iyo dhaqaalaha ku baxay garoonka oo wali shaqo badan ay u harsan tahay. lacagta soo gashay waa intaas 85,205.10 ilaa xilligaas 16 Abriil ilaa maanta 23 lacagta baxdayna waa 58,512.4 haraaga soo haray oo hadda qasnada ku jira oo airportku leeyahay oo lacag dadka laga arooriyay waa 26,692.6. qurbo-joogtan ayaa waxa ay ka yimaadeen waddanka Mareykanka waxaana ay kala ahaayeen Cabdisalaan Xasan Kooshin, Xaashi Cali Mire, Sharmaake Caab Guureey iyo Gaafa. ugu horeyntiina waxaa halkaasi ka hadlay Cabdisalaan Xasan Kooshin oo soo dhaweeyay waxqabadka ay muujiyeen bulshada reer Caabudwaaq iyo sida ay iskood wax u qabso ay ugu istaageen in ay ku dhistaan garoonkan oo ay ku baxayso lacag aad u fara badan. waxaana sidoo kale fariin uu Cabdisalaan u diray qurbo-joogta oo aan kaalintii looga qorshaha lagu dhamaystirayo garoonkan aan ka soo bixin isla markaasna laga dareemayo habacsanaan. waxaan idin sheegayaa dadka aan ka nimid oo qurbo-joogta ama Mareykan ha joogeen ama Ameerika ha joogeen waa airportkii degmada Caabudwaaq waxaan dhex taaganahay bilaantiisa waa aragtaan waxa ka muuqda oo galabta aan dhex taaganahay qurbo-joog waxba kuma leh waxaa samaysay dadkii deegaanka baa samaystay. ilaahay baa mahadle ayagana waa u mahad celinaynaa. waxaan idinka codsanaynaa wixii aanu awal haynay wax ka bedelan baa meeshaan yaalla. wixii la hayay oo ayaga awoodooda ahayd oo ayna u kala harin intaanay noqdeen waxa dhammaystirka annagaana laga rabaa. waa isugoyn oo xoolaan qaybsannay ama Yurub ha noqoto ama Ameerika ha noqotee wixii aanu qaybsannayna caawa wax laga hayaa ma jiraan. waxaa kale oo asna dhankiisa ka hadlay oday Xaashi Cali Mire oo asna si weyn ugu farxay waxqabadka ka muuqda garoonka iyo isku tashiga ay bulshadu samaysay. waxa uuna ka warbixiyay baahida ay qurbo-joogtu u qabto in ay helaan garoon ay ka soo degaan markii ay soo aadayaan eheladooda. waxaan idinku dari lahaa annagu waa soo baxnay Addis Ababa ayaanu diyaarad ku nimid. Caabudwaaq iyo Addis Ababa inta u dhaxaysa waxaan ku soo marray gaari 4 habeen iyo 4 maalmood baan soo soconay. maalintii shanaad baanu nimid. wada fiicanu ma jirto laami ma leh. waxaanu u nimid annaga oo nafta ay nagu jirto. qof kastaana waa u baahan yahay gurigiisa inuu ku soo noqdo meesha uu dhashay u yimaado arxadiisa taalay sida ugu quruxda badan oo u imaan kartaan oo maalin walba qofku uu wiigiiba 2 jeer iska soo noqon karo hadduu rabo waa in garoonkaas uu dhismaa. ugu dambeyntiina erayo dhiirigelin ah oo ku aadan qurbo-joogta haddii ayba ka qayb qaadanayaan dhismaha Caabudwaaq International Airport ayaa waxaa soo jeediyey Gaafa oo asna ka mid ahaa qurbo-joogta ka timid waddanka dibadiisa. ka nimid always waxaan ka fakarnaa lacagteedu meel fiican ma ku bixi doontaa sidii loo rabay ma u bixi doontaa. waxaan rabaa inaan idin sheego nimankan waa niman accountability leh. waa niman waxa la yiraahdo financial statementigooda uu clear yahay. waa niman qof walba ama wax qora ama aan wax qorin uu fahmi karo waxa la yiraahdo lacagta ay qaadaan meesha ay ku bixiyaan. Maxamed Salaad Maxamed, Somali Channel, Caabudwaaq.